salaamantiin ku soo dhawaada wax ka bara channel muuqaalkan waxaynu kaga hadli doonaa waxyaabaha la sameeyo markaad murugaysan tahay. waxyaabaha dadka badankoodu aanay ka ogeyn murugadu waa in aanay hayn cudur balse ay tahay fariin. markaad si lama filaan ah u taabato walax kulul habdhiska dareenadaadu waxay kugu kiciyaan ama ku dareensiiyaan xanuun si aad waxa kulul gacantaada si degdeg ah uga qaado. murugada, niyad jabka iyo dhammaan dareenada kale waxay la mid yihiin xanuunka oo kale. qayb maskaxdaada ka mid ah oo loo yaqaan subconscious mind ayaa waxay kugu dhalisaa inaad dareento dareen xun si ay kugu dhiirigeliso inaad ficil samayso oo aad wax ka qabato waxyaabaha ku dhibaya. ficilkaasi waxa laga yaabaa inuu noqdo inaad shaqadaada joojiso, inaad saaxiibo cusub samaysato, inaad wax dib u bilowdo, inaad alla ka cabsi iyo cibaadada badsato oo aad alla ku dhawaato, inaad balwad xun oo noloshaada dib kaaga riday aad joojiso iyo wixii la mid ah. marka aad fahanteen murugadu tahay calaamada ma farin, tallaabada ugu horeysa ee ay tahay inaad samaysaa waa inaad falowgeeda gasho sidii aad uga soo kaban lahayd. bal waxaad ka warantaa waxa kugu dhici doona haddii walax ama shay kulul aad gacantaada ku sii hayso adigoon ka dulqaadeen xataa adigoo xanuun aadaha dareemaya. miyuu xanuunku kaa baabi'i doona? waxaa hubaal ah inaanu kaa baabayn balse uu ka sii dari doono. tan waxaa la mid ah murugada. haddii aanad hore jawaab uga bixin fariinta maskaxdaada kuu soo dirayso, murugadaadu way ka sii dari doontaa. sida xal loogu helo dareenka murugada, khabiiro badani waxay kula taliyaan dadka murugaysan inay qaataan dawada murugada, balse xaqiiq ahaan dawadoo keliya ah weligeed kaa kaxayn mayso murugada. dawada murugada waxaa loogu talagalay inay dib iskugu hagaajiso kiimikaadka maskaxdaada ee khalkhalay, aanay ku dareensiiso dareen fiican. balse ilaa aad ka ogaanayso oo aad hagaajinayso waxyaabaha khalkhaliyey kiimikaalada maskaxdaada, murugadaadu weligeed tegi mayso. si aad xal ugu hesho murugada waa inaad baadhaa isbedelada dhawaanahan ku dhacay noloshaada ka hor intii aanad murugada dareemin. ma shaqadaadaad necab tahay? ma booskaaga ama maamulahaaga shaqada ayaad necab tahay? ma qof aad isjeclaydeen ayuu xidhiirkiinii burburay? ma ujeeddada noloshaadaad garan laadahay? ma cidlaad dareemaysaa? ma hadafyadaadii baad gaadhi weyday? mise waxaad dareemaysaa inaan lagu jeclayn? markaad ogaato waxyaabaha sababay murugadaada, waxaad u baahan tahay inaad samayso xal aad aaminsan tahay inuu kuu shaqaynayo. caawi naftaada adoo ficil samaynaya. qof tale weydiiso haddii aanad garanayn xalka. beri ilaahay oo ku ducayso ducada murugada. weydiiso caawimaad saaxiibada. shaqadaada jooji hadday tahay ta kugu sababaysa murugada. buugaagta akhri, waxbar naftaada. magaalo kale u guur. u ballanqaad naftaada inaad isbedelayso. waajah cabsiyahaaga. ma jiro xal keliya oo aad ku xalin karto murugadaada sida inaad jimcisato iyo inaad dawooyin qaadato, sababtoo ah qof kastaaba uu ka duwan yahay qofka kale. murugo kastaana waxay u baahan tahay ficilo kala duwan si loola tacaalo. ficilada aad u baahan tahay inaad samayso si aad u daweyso murugadaadu way kala duwan yihiin, iyagoo kalba ku xidhan wixii sababay murugadan. si kastaba ha ahaatee, maskaxdaadu kaa saari mayso ama qarin mayso fariintan ilaa aad xal u helayso ama aad ficil samaynayso. qaadashada dawadu way kaa caawin kartaa murugada, balse xal buuxa uma aha. dil murugada adoo ficil samaynaya isla markaana xalinaya wixii dhab ahaan u sababay. haddii muuqaalkani ku caawiyey like saar. haddii aad ku cusub tahay channelkan taabo subscribe si aad ula socoto muuqaalada dambe oo aad ku anfici doona. fikirkaagana noogu soo gudbi qaybta commentiga. wanigoo Cabdirasaaq Faarax oo idin leh nabaday.